ريبورت ugu dambeeyay waa qarashada shacabka soo waxa ku qoran waxa loo magacaabo geedka tijaabinaya ama kuwa irinta ka taagan SNTV kala soo fariin madaxweynuhu toos u la hadlay shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa khayr iyo wanaag iyo horumar waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan meesha marxaladda taariikhiga ah oo ay marayaan maanta waxaan aad iyo aad rabaa in aan focus ku saaro shacabka Soomaaliyeed maanta waxay ku jiraan tijaabo la tijaabinayo jiritaankooda taariikhdooda haybadda dadnimo oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way arkayaan way akhrisanayaan riboorada mar walba soo baxaya oo aan aad iyo aad u qurux badnayn wax laga xumaado laga xanuunsado ah arrimaha ku saabsan xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay runtii isugu dayaysaa in ay arrimahaasi ay wax dhaba ay ka qabato waxa aad loo dacweeyaa ama loo eedeeyaa ciidamadeena aad iyo aad ayaan arrintaas u xanuunsanayna oo xunnahay aad iyo aad ayaan u daba taaganahay ciidamada in maxaan ku yiraahdaa la hubiyo in ay dadka u istaagaan dadka inay difaacaan maaha dadka in ay dulmiyaan ama ay ku xadgudbaan xuquuqdooda ay leeyihiin ee dadnimo ee Soomaalinimo arrintaasi askarta ayaa lagu eedeeyaa baaritaan xoog leh iyo dadaal badan ayaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliska booliska Soomaaliyeed ay wadaan sidoo kale ma aha askariga kaliya ma ahan askariga kaliya waxa aada yeelanayo haddii dambi dhaco laakiin sarkaalka madaxdu aana waa la weydiin doonaa askarigaasi dambiga galay waqtigu galay iyo sarkaalku waxa ay ugu guuleysan waayay inuu askariga dambiga kor istaago sidaas oo kale ma aha kaliya ciqaab oo waxaan daba taaganahay waxaan horumarinaynaa fursadda ay haystaan ciidankeena oo ah dhinaca disciplineka dhinaca tababarka waxaan wadnaa tababaro ku saabsan waajibaadka askariga xuquuqda aadanaha sida uu difaaci lahaay waxbarasho ku saabsan ayaan ku wadnaa ciidankeena oo aan rajaynayno inay wax badan ka bedesho waxaan joognaa waqti aan leeyahay dadka Soomaaliyeed ay habboon tahay inaan isku tagno oo aan u istaagno halka caalamku oo ka xanuunsaday dhibaatada dadkeena haysataay inaan annagu ka xanuunsano oo aan u istaagno difaacideeda khaasatan mar horena waan dhahay waan ku celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed waa sharafta ummadeena ma ogolaan karno wiilal yar yar oo annaga naga tirsan oo xumaaday in ay sharafti naga xanyuubiyaan ma ogolaan karno dadka Soomaaliyeed dhamaantiis yaana lagu halaynin dawlad yaana lagu halaynin madaxweyne aan u istaagno oo aan ilaalino xuquuqda aadanaha dalkeena aan ka bixino magaca Soomaaliya riboorada iyo liisaska caalamka ee lagu tilmaamo meel xuquuqda aadanaha lagu tunto xuquuqda aadanaha lagu tuntaa marka la leeyahay macnaheedu wuxuu yahay dadkaasi waa barbaarig waa xoolo rule of law meesha kama jiro aan ka nimaado meeshaas aan nimaado dad sharaf leh garanayo xuquuqda aadanaha ilaaliyo oo difaaca kuwooda nasiib darradu ay qabatay kuwooda tabarta daran kuwooda muxuu ahaa daciifka ah dad ilaaliya oo difaaca oo hortaagan inaan noqonaana laga rabaa si khaas ah waxaan fariintan u farayaa dadka ku nool magaalada Muqdisho aad baa looga cabanayaa reportkii ugu dambeeyay waad aragteen waxa ku qoran waxa lagu magacaabo gatekeepers ama kuwa irinta ka taagan dadka soo barakacay masaajid dawladda Soomaaliya waligeedna raali kama ahayn haddana kama noqonayso wax kasto dadaal oo geysan waa geysan karnaa laakiin dhuumasho iyo tuuganimo iyo qarsoodi iyo dadku caawimada inta la raro xariya gaar iyo guryo gaar iyo garaashyo la geysto oo markaad hor istaagtid ay kuleen waa fiican ay qoslayaan markaad ka soo tagtaan dhibaato lagu sameeynayo waay waxyaabahan hor yaal dadka Soomaaliyeed ha u istaagaano walaalahooga Soomaaliyeed ee tabarta daran in la difaaco oo la ilaaliyo intaasaan jecelahay inaan gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed waa mahadsan waxaan aad iyo aad
dambeeyay waa qarashada shacabka Soomaaliyeed waxa ku qoran waxa loo magacaabo geedkii tijaabada ama kuwa idinta ka taagan SNTV kala soco fariin madaxweynuhu toos ula hadlay shacabka Soomaaliyeed.